kulan wanaagsan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka waxaad nagala socotaan kala Summit TV qodobada daawan doontaan haddii Ilaahay raalli ka noqdo waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay deegaanka Soomaali galbeed kadib weerarkii gaariga qaraxa ka buuxay ee la fashiliyay taliska ciidanka deegaanka Liu Police oo war cusub soo saaray kadib weerarka mar kale ka fashilmay ururka Al-Shabaab waxaad kaloo daawan doontaan haddii alla laga helo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ka digay halista ku duugan xilka wasiir ee loo magacaabay Muqtaar Roobo Abu Mansuur baaqa degdeg ahna u diray madaxda ugu sareysa Soomaaliya qodobada kale aan idin hayno waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda u muuqanaya mid ceeb iyo wajigabax kala kulmay dhigiisa dalka Uganda Yoweri Museveni kulankii Kampala oo bahdil uu ku dhacay wafdigii Xasan Sheekh hogaaminayay ayaan idin haynaa qodobadaas waliba qodobo kale ayaan daawadayaal idin haynaa u diyaar garooba wararkaas oo faahfaahsan insha Allah aan ku bilowno kadib markii saacado ka hor ciidamada dawladda deegaanka Soomaali galbeed ee Liu Police ay hor istaageen weerar qarax oo gaari qarasiday ay Al-Shabaab la damacsanaayeen inay ka gudbiyaan xuduudda ay wadaagaan gobolada Mudug iyo waliba Doolo ayaa ciidamadu ay ku guuleysteen in la fashiliyo gaarigaas oo walxaha qarxa ay ka buuxeen waxa la doonayay gobolka Doolo in laga sii gudbiyo magaalooyinka waaweyn ee dawladda deegaanka Soomaali galbeed hasaatee ciidanka geesiyaasha ee xoogga gaarka ee Liu Police oo aad u feejigan isla markaana xuduudda iyo amnigeeda ilaalinaya ayaa waxa ay baaritaano ay sameeyeen ka war heleen in qaraxaasi shabaabka ay damacsanaayeen la fashiliyay waxaana arintan bogaadiyay taliska ciidanka xoogga gaarka ah isla markaana ay sheegeen in hawshan ay bogaadinayaan dhiirigelinayaan ciidamadii shaqadaasi qabtay waxa wararku ay sheegayaan in ciidamo dheeraad la soo dhigay xuduudda dawladda deegaanka Soomaali galbeed ay la wadaagto gobolada Soomaaliya si looga hortago weeraro argagixisada ay ka fuliyaan gudaha deegaanka oo ay ka talaabaan xuduudda ayaa la yiri dhinaca kale taliyaha xoogga gaarka ah ciidanka Liu Police sareeye guud Maxamed Axmed ayaa sheegay in Al-Shabaab jabkii ka gaaray duulaankii ay ku qaadeen dawladda deegaanka gaar ahaan gobolka Afdheer laba toddobaad ka hor aysan weli ka soo kaban isla markaana waxa uu faahfaahin ka bixiyay horjoogayaasha shabaabka ee la laayay qaarkood lacago malaayiin dollar oo Mareykanka uu hore u duligay ayuu sheegay in ay ku jireen xubnaha la dilay waxa sidoo kale uu sheegay in ku dhawaad 100 maxaabiis nool shabaabka ahaa gacanta lagu dhigay isla markaana hadda ay taliskooda gacanta ku hayaan adu amaraar ahaan wixii amaraar ahaan weyn ee ragga Ameerika ay ugu ballan qaaday inay 10 milyan iyo 15 milyan dollar la siinayo hadii la keenayo marka lagu daro 24 nin oo raggi waaweynaa aan leenahay waxaan anagu marka leenahay ama shaalaqa mari ama brigade mari aan leenahay ciidanka haystay amiir la yiraahdo iyada wixii soo galay meeshan ama amiiraha ama wax kala ahaade uu dhinto taa darteed 813 nin ayaan anagu imika tajabaaj aan meedka aan taranay ku dibad gudaha ah iyo ku xadka ah iyo ku xariirina lagu soo weerarayba iyo ku ay dayuuradu laysaba 813 Al-Shabaab ayaanu dilay ilaa 340 dhaawacana meelihii ay geeyeen ayaanu xogtooda ka helay marka Al-Shabaab jabki ugu weynaa ayaanu gaarsiinay nolosha abid waxaana Al-Shabaab aan la qabanin oo adduunka aan ka dhicin ayay kala kulantay dagaalkii halkan ahaa 92 nin oo Al-Shabaab oo nool ayaan gacanta ku haynaa deegaankan anu dagaalkan kadii maanta shacbiga cadawga nagu soo qaaday anu weyn midiyay baan leh dagaalkii mideeyaha in loogu magac daraaban anu oran lahaa waayo maxaafid iyo nin aan maxaafid ahaynba nin oranaya Al-Shabaab way ma khaldaneen dadka khaldan wali anu ma arkin nin na soo garab istaago oo na soo caawiyo maxaan qabtaa xageena ka caawiyaale mooyee nin nacam negative oo naga soo horjeeda ma arkin taana wadaniyada loo muujiyay maanta in Al-Shabaab laga hortago la iska celiyo in cadawada kale ee inagu meermeersan oo kalena ina saal loo garab istaago wadankeena la ilaasho oo nin walba wadanka mid af ku ilaaliya mid qori ku ilaaliya mid naftiisa oo hura ina sida maanta tan aynu isu raacno aan isu wada raacno yaan anigu oran lahaa dadku maanta tan ha ku cilmi qaato sida maanta la isu raaco in heshiisiyo dagaalkani uu iskeen raacsiyo dagaalkani cid kasta oo wax kasta inagu soo qaata ama dhinac kale inaga wadana saa inaan ugu midowno ayaan oran lahaa kaasi waxa uu ahaa taliyaha xoogga gaarka ah ee ciidanka farda awliye lagu naanaysa ee Liu Police sareeye guud Maxamed Axmed
waa hagaag bal markana madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa weli waxay ku sugan yihiin magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda hasaatee kulan hordhac u ahaa shirka arrimaha iskaashiga labada dal u dhaxeeya ayaa waxaa jiray in bahdil lagu sameeyay Xasan Sheekh iyo wafdigiisa Yoweri Museveni ayaa si jees ku jira ula hadlay wafdigaas waxa uu yiri if it is a question of weapons we can buy them hub waan idin soo iibin karnaa dirays ka ciidamada waan idin soo gadi karnaa uniform we can buy even food we can share but what we cannot manage is salary xataa cuntada dhib ma laha laakiin mushaar idinkama bixin karno salary every month of big number we can't manage ciidankiina kuma jiri karaan in bil walba dal aad mushaar uga doonataan goorme ayaad nabad helaysaan ileen nabad ayaad u baahan tihiin because you need security Yoweri Museveni ayaa jees hadalkiisa dadka qaar ay u fasirteen laakiin waa dhaga hadal iyo waliba in xisbiga Damu Jadiid ay markii hore weydiisteen ciidamada in laga taageero mushaaraadka oo dawladda Uganda ay codsigaasi hordhigeen wuxuu ku kaftamay madaxweyne Yoweri Museveni if I'm a poor man I don't have money tusaale ahaan haddii aan ahay nin faqiir ah ama sabool ah oo aan doonayo inaan gurigayga difaacdo caruurtayda iyo dadkayga ayaan abaabulayaa oo aan leeyahay aan difaacano gurigeenna sababtoo ah nabad baan u baahanahay but I can defend my home I can mobilize my son and my brother and we defend our home nobody is paying us we want peace hadalkan Yoweri Museveni madaxweynaha Uganda ayaa u muuqanaya mid uu jawaab kaga dhigayay cabasho iyo waliba codsi madaxweyne Xasan Sheekh uu la tagay waxaana dadka qaar fasiraado kala duwan ay ka bixiyeen bahdilka uu sameeyay Yoweri Museveni oo la og yahay in xilligii dawladii kacaanka marxuum Maxamed Siyaad Barre uu hogaaminayay in uu kamid ahaa madaxda hadda nool ee wax ku bartay jaamacadii Lafole ee dalka Soomaaliya dhinaca kalena ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ka hadlayay xukuumadda cusub ee la soo dhisay waxa uu sheegay in shaqooyin ay hortaalo uuna bogaadiyay hawsha iyo waliba sida loo gudagalay wuxuu tilmaamay in amniga guud ee dalka muhiimadda gaar ka ah ay tahay inay wax ka qabato si gaar ah caasimadda magaalada Muqdisho wuxuu ku taliyay in laga hortago kooxaha ciyaal weerarada iyo waliba kuwa hubaysan ee bistooladleyda u badan ee dadka ku dila Muqdisho habeen iyo maalin iyo kuwa qaraxyada geysta oo uu la jeeday ururka Al-Shabaab ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid ayaa sidoo kale soo dhaweeyay habka xukuumadda loo soo dhisay balse waxa uu ka digay Muqtaar Robo Abu Mansuur in loo adeegsado xilka loo magacaabay la dagaalanka Al-Shabaab taas uu sheegay madaxda dawladda federaalka in ay il gaar ahaaneed ku eegto arrintaasi waxa ay dad badan sheegayaan in Muqtaar Robo weli aanu ka dhaqmin fikirkii Al-Shabaabnimada wax kastana ay suurtagal ka noqon karto iyadoo hadda mansab iyo waliba meel sare la geeyay marka loo eego xilka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee wasiirka looga dhigay inkastoo 2017kii uu shaaciyay Abu Mansuur Robo inuu isaga baxay ururka Al-Shabaab kulana dagaalay deegaanka Abal ee uu ka soo jeedo gobolka Bakool haddana weli farta ayaa ku godan sida dadka qaar ay sheegayaan oo weli fikirkii argagixisanimada kama tirtirmin ayaa dadka qaar ay aaminsan yihiin bal qodobkaas ugu dambeeyay daawadayaal